بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan daawadayaasha meelaha kala duwan nagala socda, waxaan ilaahay uga rajaynayaa subxaana wa tacaala, ugana baryayaa annaga iyo iyagaba inuu bisha ramadaan na waafajiyo soonkeeda iyo salaadaheeda, inuu naga aqbalo camalkeenna iyo cibaadaadkeenna. waxaan ilaahay weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala inuu nagu daro kuwa loo dembi dhaafo, naartana laga xoreeyo, lana waafajiyo sababtay ku mudan lahaayeen oo toosnaan iyo alla ka cabsi ah. casharkeenna maanta waxaan kaga hadli doonaa laba qaybood. qaybta koowaad waa guubaabo aan dadka ku dhiirigelinayno soonka iyo bishan qiimaheeda iyo sida ay dadaal u mudan tahay. qaybta labaadina waxaan kaga hadli doonaa, haddii alla yidhaahdo, in ka mid ah axkaamta soomka oo ku saabsan keliya sidii looga ilaalin lahaa inuu soonku kaa jabo, looguna dadaali lahaa inuu kaa asaxo. qaybta koowaad, bishan ramadaan waa bil mudan dadaal, sababtoo ah waa bil xambaarsan waxa ugu muhiimsan macnihii qofku uu muslim u noqday, cibaadaadkii iyo camalkana uu samaynayey. waxaynu iimaankeenna, islaamnimadeenna, alla ka cabsigeenna, soonkanna iyo salaadda iyo sakadaan bixinayno, waxaynu ku doonayno waa dembi dhaaf iyo daartii janno wey. labadaasaa ugu muhiimsan waxa uu hiigsanayo ee uu doonayo, himilada uu gaadho inay noqoto qofka muslimka ah. dunidan maalmaa la joogayaa, madasha lama huraankaana waa midda aakhiro. ninkii maalintaas naar ka badbaada, nicmada jannadana uu rabbi siiyo, qofkaas ah qofka liibaanay ee libinta wanaagsan ama libinta maguurtada ah soo gelbiyey. ilaahay saa darteed buu qur-aankiisa qadiyaddaa ku tilmaamay marka uu leeyahay, faman zuxzixa cani innaari wa udkhila aljannata faqad faaz wama alxayaatu اddunyaa ilaa mataacu lguruur. qofkii naar laga dheereeye laga badbaadiyo, jannana la geliyo, qofkaasaa libin iyo guul gaadhay. adduunyaduna waa madadaalo iyo maaweelo iyo wakhti kooban, nolol lagu raaxaysto oo dadka naftu ay jeceshahay oo la jooga wey. haddaba haddii yoolkeenna iyo himilada ugu weynayn rabna inaan xaqiijinaayo ay tahay in dembigeennana la dhaafo, daarta aakharana janno aan gallo, naarna ka badbaadnaaye, bishan ramadaan bay labadaasi aada u furan yihiin. wixii kaa hor istaagayeyna wax badan la fududeeyey, xagga allah laga fududeeyey subxaanah. amaa fududayntu, shayaadiintii cajajilib culusta ahayd iyo kuwii khatarta ahaa ee ku gaamuray dhuminta dadka ayaa la xirxiraa, oo nabigaanay ka sugan tahay sala allahu calayh waalihi wasalam inuu yidhi, hadday bisha ramadaan soo gasho sufidat ishayaaiinu. riwaayaad baa sii xadaysa oo sii koobtay oo tiri maradat shayaaiin, kuwooda aada u madax adag, aada khibradda u leh, kuna gaamuray ee ku ilbaxay, dadka qaababka loo dhumayana khibradda badan ku yeeshay, kuwaasaa lagaa xirxirayaa. saasaad arkaysaa naftu inuu khayrka iyo camalka jannada uu aada ugu fudud yahay. bishan waa la ysu dembi dhaafaa,
soonkeedana waa la isugu dambi dhaafaa qiyaamka salaadeedana waa la isugu dambi dhaafaa waa labada dadaalka ugu badan mudan man saama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min danbih qofkii bisha ramadaan sooma alla dartii iyo rumaynuu ballanqaadkiisa rumaysan yahay keliya eedan adduunyihii ujeedooyin kale u soomin dembigiisa hore waa loo dhaafayaa xadiidka abi hureyre wey riwaayo kale waxay ahayd man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min danbih qofkii ramadaan qiyaamu leylkiisa iyo salaadiisa sameeya dembigii hore waa loo dhaafayaa hadday alla dartii iyo iimaanuu rumaysan yahay ballanqaadka eebbe ay ka tahay halkaa waxaynu ka garannay haddaynu doonayna dembiga in laynaga dhaafo oo dunuubteenna rabbi asturo subxaanah waxaynu u baahan nahay inaynu bishana soonno habeenkeedana istaagno dadaalkaa bishana laga helaa waxaa kaloo nabigeena ka sugan sal alla alay wasalam ilaahay inuu dad naarta ka xoreeyo habeen kastaba habeen walba dad baa naarta laga xoreeyaa taasi waxay tilmaamaysaa qofkii isagu isbeddel la yimaada oo sooma oo dadaala oo towbad keena oo noloshii dembiga iyo qallooca ka bedeloo toosnaan iyo camal khayra ku bedelayay ilaahay dembigiisana waa dhaafayaa naarna waa laga xoreyn waxay ka dhigan tahay ahluljannaha lagu darayaa faman zuxzixa cani naari buu noqonayaa naar qofkii laga badbaadiyo wa udkhila aljannatana waa ku biirayaa haddaba dembigaagoo la dhaafo iyo naartoo lagaa xoreeyo oo ahluljannaha aad ka mid noqotay bishan ramadaan baa lagu helaa soonkeeda iyo salaatuleylkeeda oo lagu daray dee faradkii salaadaha iyo waajibkii la ilaalinayay soonka la isugu dambi dhaafayo waa soonkee ma soon walbaa oo ramadaan la soomo maya waa soonka nabigu xadiid kale ku yidhi man lam yadac qowla الzuuri wاlcamala bih falaysa lilaahi xaajatun fi an yadaca طacaamahu wa sharaabah ninkii aan ka tegin falka iyo dhaqanka dembiga ee qalloocsan iyo erayga iyo hadalka dembiga ee qalloocsan ilaahay waxba ugama baahna cunto iyo cabitaan inuu daayo ilahay waxba ugama baahna sababtoo ah cunto iyo cabitaan la daayay ilaahay agtii wax weyn kama aha laakiin waxaa wax weyn ka ah cabsida alle ee kugu xambaartay inaad ilaahay dartii u dayso saa darteed tanba haddaad ilaahay dartii u daysay kuwii kalena waa ilaahay dartii u daysaa intaa waxaan rabaa inaan naftaydiiyo walaalahiiba xasuusiyo bishani dembi dhaafna way leedahay soonka la isugu dembi dhaafana waa soonka dembiga laga ilaaliyey dembi dhaaf bay leedahay iyo naar la isku xoreeya sidoo kale qiyaamu leylkeeda oo alla dartii loo istaagay een dad istutus ahayn way mudan tahay marka inaynu dadaallo xusul duubno inaynu guntiga intaan isku adkayno oo aynu dhiishi isaga dhigno aynu dadaalkii iyo camalkii lama laabno inaan khayrka badinno xumahana yarayno waxaa kaloo bishani ay u mudan tahay in wax badan oo dadaala la sameeyo kuna boorinaya qofka alla cabsidiisa baa soonka bishan lagu gaadhaa waxay xaqiijisaa intaad alla ka cabsanaysa subxaanahu wa tacaala walidaalika qur-aanku xikmadda uu sheegay ee si cad u sheegay baa waxay tahay lacalakum tattaquun ilahay inaad ka cabsataan ilaahay cabsidiisu siyaabo badan baa looga cabsadaa laakiin waxaa ugu muhiimsan xadiidkii nabigeena calaih slat slam ee cumar markuu darajada ixsaanka ka hadlayey waa kii ahaa an tacbud allaha kaannaka taraah sida adigoo ilaahay arka oo muraaqabadiisa iyo inuu kaa warqabo oo uu ku og yahay oo wax walba kula socdo darteed aad xumaha iyo dembiga uga xishooto rabbina subxaana wa tacaala aad ku xushmayso kuna tixgeliso oo ku qadariso oo ku weynayso in waxuu kuu diiday aanu kugu arag soonku haddaba muraaqabada ilaahay oo ilaahay inuu kula socdo wax walba ku og yahay mar walba kaa warqabo baa waxa ugu weyn ee taqwada iyo alla kacabsiga xubnaha iyo dhaqanka qofka ku beeraah markaad og tahay waxaad rumaysoo dhan wixii qalbigaaga gala wixii ereyga kaa soo baxa wixii faleed samayso meeshii aad tagtaba rabbi inuu ku daalacanaya markaad og tahay
inaad ka cabsato kana xishooto ka sariigatana mudan tahay markaa wax weyn bay qalbigaaga iyo iimaankaaga u tartaa cabsida ilaahayna dhaqankaaga iyo xubnahaaga iyo ficilkaaga iyo afkaaga iyo adinkaagaba ay saamayn ku yeelataa taasi ramadaanka laga helaa oo see looga helaa cunada iyo cabitaanka ilaahay dartii baad u daysaa waxaa dhici karta inaad duur cidlaa joogto waxaa dhici karta in guri kuu soo xidhan yahay albaabada ood keligaa tahay waxaa dhici karta inaad gaarigaaga ku jirtaa dhacda oo daaqadaaqaduhu kuu dallacan yihiin waxaa dhici karta dadku garanaya iyo cid muslimaba inayna ku ag joogin intaasoo dhan inaad wax cunto ood wax cabto maxaa kuu diiday su-aashaa marka lagu weydiiyo alla ka cabsi waay oo alla ka cabsigaasi muxuu ka dhigan yahay haddaan cunoon cabo ilaahay allihii aan u soomanaa dee wuu arkaa inaan soonkii jabiye wuuna ila socdaa soonkaa iga aqbali maayo halkaa waxaad ka garatay meeshaad joogto keliga xataa haddaad tahay alla waa koogyaho waa kaa warqaba sidaa dembigaas cunno iyo cabitaan iyo waxa soonka jabiya isaga daysay adoo cidlo jooga adigoo keligaa ah adoon aadama ku arkin adoon islaamba ku arkin ina allah iyo adiga aad tihiin alla dartii aad u soomanayd allahna koogyahay ay tahay ogow dembiyadii kalena allah baa kaa xaaraantinimeeyey allahna mar walba waa ku arkaa xataa habeen madow hadday tahay taasi waxay ziyaadinaysaa soonku ziyaadinayaa oo markaad ilaahay dartii sidaa cunto iyo cabitaan uga tagtay maadaama uu ku og yahay cabsidii allah kugu weynaatay qalbigaagay ku xoog badatay arrintaasi waa arrin muhiima oo cabsidii ilaahay xaqiijinteeda gun iyo lafdhabar u ah middaas camaasha sida aadkaa looga helo soonkaa ka mida ama kowka ah soonka waxaa kaloo laga helaa naftu inay barato adkaysiga inay barato naftu waxay u baahan tahay inay adkaysato inay xilli adag iyo xaalado adagba ay xamili karto adduunyadu nabadun ma wada aha mar bay colaadi dhacdaa lama dharagsanaado mar baa la gaajoodaa lama caafimaadsanaado mar baa la xanuunsadaa nafta dallaca lagu barbaariyey duruufaha adag lama qabsato maadaama duniduba ay sidaas tahay markii lagu abuuray ee dunida soo gashay waxaad soo baxday adoo ooyaya markaad geeriyoonaysa sakaraadku qabtana adoo nafta lagu qarqariyey oo dhididsan oo rafaadsan baad ka baxdaa inta u dhaxaysana sidaan uga qaado haddaad maalmo faraxsanaato maalmo ka badan baad nixi haddaad maalmo dheregsanaatana maalmo badan baad dhici karta inaad gaajooto naftu in loo diyaariye beri adayga iyo xilliga dhibaatada oy xaaladaha kala duwan xamili karto buu soonku macallin iyo tarbiya ugu yahay war qofkaan gaajo aqooninow bal gaajada baro qofkaan oon aqooninow bal oon baro meel baa aad u kulula lagu soomaa meel baa maalintu aad u dheer tahay dad baa 20 saac sooma dad bay qoraxdu dhamacda qoraxdu iyo holaceedu waa 40 iyo 50 dhaafaya 40 dhaafaya 50 na gaaraya maalin dhowan ma ka soo maray xilli saqda dhaxo habeen barkii ka dambayso 7 saac ama 8 saac habeenimo ama si kala daa u dhigto kowda ama labada subaxnimo bay 37 maraysi xilliga maalinta bartamaheeda ah suudu kuleelkeeda intii uu tagayaabaad u maleynaysaa dad baa la doonayaa inay ku soomaan in baan qaboojiye iyo biyo qabow iyo mukayaf iyo qaboojiyaal haysanin xaaladda sidaasa adayga oonka iyo gaajada iyo maalinta dheer dhibaatadeedu naftay barbaarinaysaa inay xilliyada adag u xamili karto nafta waxay baraysaa in waxay jecelayd ay ilaahay dartii uga tagto nafta waxay baraysaa in wax adag ilaahay dartii ay ugu sabirto nafta waxay baraysaa daacada ilaahay in lagu sabro macsiyada ilaahay in laga sabro labadaba naftu way baraysaa xanuunkeedii iyo gaajada iyo dhibkana loo adkaysto cumar baa laga wariyay radiyallahu anhu inuu dhihi jiray ikhshawshinu fa inna ni'ama la taduum adayga iyo adayga isbara nicmadu ma daa'imto qofka adayga naftiisa baray ee xilliyada adag iyo xamilaada iyo adkaysiga ku barbaarayna waa ka waxtarsan yahay qofka dallaca ku barbaaray
Soomaalida arag ilmaha baadiyaha xoolaha raacitaankooda iyo duurka orodkiisa ku barbaaray kuwan magaalada inay ka adag yihiin oo marar badan ka waxgalsan yihiin. Soomaalidan arag geedka baadiyaha isagoo biyo la waraabin buu waqti dheer iska qoyanaada, halka geedka magaaladu maalmaha hadii la waraabin waayo caleentiisu ay dhadhay qalasho. Soomaalidan arag gabadha baadiyaha joogtay inta iyadoo xoolo jirta ama geedi leeyahay umusho ay ilmaha garabka saarata, halka gabadha magaalada joogtay saacado iyo maalmo ay sariirta umul dul jiifto. Midna dalaca iyo dabacsanaan iyo jiljileec bay naftiisu la qabsatay, midina naftiisu adayga iyo wax adaga inay xamisho ayay la qabsatay. naftuna horaa loo yiri والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. naftu waa ilmaha carruurta oo kaleeto, haddii ilmaha carruurta naaska inuu nuuga lagu barbaariyo isagoo weyn hooyuu nuugu rabaa, haddii isagoo yar laga gooyana uu ka go-aya uu isaga tegayaa. naftu waa wixii la baro, madrasa weeye marka cashir laga qaato soonku. midda kale soonku waa xilliga ninka wax haystaay uu tabo oo xasuusto baahida qofka tabaalaysan. dad baa had iyo goor ooman, dad baa had iyo goor gaajaysan. adugu haddii aad dharagsanaan jirtay soonka waxaa lagu barayaa xanuunka gaajada iyo kulaylka oonka. dadka badan ee muslim ah oodan ka nasab fiicnayn, oodan ka diin fiicnayn, oodan ka cibaado badnayn, ilaahayna waxba aadan ka xigin baa inta aad dharagsan tahay iyagu gaajaysan. inta aad biyaha badan cabaysad cokan tahay iyagu ooman oo boglaalan. in baa dhibaatada iyo duruufta ku jirtaa, bal inaad dhadhamiso dhibta dadka qaar ku jiraan si aad laba u ogaato nicmada ilaahay kuu nicmeeyey marka uu ku dharjiyay inaad ogaato iyo in lagu imtixaanayo. mudnaanta ay kaa mudan yihiin dadka baahan ee duruufaysan inaad xasuusato ood wax taarato. saas darteed baa dadka sooman afurintiisa soon labaad looga dhigay. hadduu soonku gaajo ahaa, qof gaajaysan ood afurisaay soon labaad ajirkii bay kuu tahay. waa in lagu xasuusiyo mar labaad baa lagu xasuusinayaa dadkaa gaajaysan oo gaajada laga biyaay qiimaha iyo wanaagga iyo ajirka ay leedahay. intaa kadib soonku waa isbitaal caafimaad. naftuna wax badan oo xanuun iyo jiro ah oo gaajo iyo soon lagu daweeyo bay dad badan oon muslim ahayn us uga gooyaan cuntada iyo cabitaanka. jirku wax badan oo subag ah ama xaydh ah buu kaydiyaa. wax badan oosan u baahnayn oo hadhow isaga dhib u geysta baa jirka ku jira. soonka oonka iyo gaajadu wuxuu dib u isticmaalaa wax uun sun ahaan ama si khalad ugu dhex jiri lahaa. saas darteed baaba soonka caafimaad laga raadiyaa. cudurrada dharagta iyo bakakha laga qaado iyo tagta tujaarta ah iyo boqorada cudurrada cunto badnida ugu dhaca caafimaadkeedu waa soonka. intaad isqasho berri calooshaada xaydh badan aad ka gurto, haddana qayb inta lasoo tolo in yar lagu reebi lahaa, aduguba soonka maad badisid, caafimaadna waad heli, ajir iyo darajaad sarena waad heli. isagoo ajirkaan soo sheegnay ahaa baa dhinac kale caafimaad ku weheliyaa. laakiin waa goorma? waa markii aadan habeenkii soo laban laabin wixii maalintaad cunaysa. waxaa nasiib darro ah in bisha ramadaan oo maalintii oo dhan la sooman yahay, habeenkiina wax yarna wax la cuno, inna la tukanayo inna la hurdaayey uu reerku ugu kharash badnaado. waa nasiib darro in bishii ramadaan ee cuntadaha laga soomo, cibaadaha la badiye la yirina waxaan manfaco fiican lahayn dadka cunto lagu mashquulo. biilka u badan dadka qaarkii bisha ramadaan bay gataan, dabka ugu badanna gabdhaha qaarkood bisha ramadaan bay galaan. waxaan la yaabay gabdhaha Soomaaliyeed cuntada dabka ugu badan ka qaadata baa ugu manfaco badan. bahal saambuus la yiraahdo oo Soomaalidu moodo inuu shuruuda soonka asixitaankiisa in lagu afuro kamid yahay, wax ka manfaco yar oo ka mashaqo badan ma arag. warba bisha ramadaan la iska daayo. inta cibaadaysan lahayd, quraan akhrisan lahayd, dhikr ilaahi gali lahayd, baa iyadii ninkeeda iyo reerkada uga khayr badnaan lahayd. afar xabo saambuus oo saacada dul taagnaato. soonku
intaasoo cashar buu xambaarsan yahay waa wax mudan dadka muslimkii inay ku dadaalaan bishaa soonka say u xafidan lahaayeen intaasi waxaan kaga gudbayaa qaybta koobaad ee guubaabada bisha ramadaan soonkeeda iyo in laga faa'iidaysto iyo faa'iidada uu leeyahayba aan doonayay inaan kelimadda ereygan kooban kaga idhaahdo qaybta labaad axkaamta soonka laba arrimood baa ugu muhiimsan waxaan doonaya inaan wax ka idhaahdo arrinta koobaadi soonku sidee buu kaaga ansixi karayaa wey arrinta labaadina soonka maxaa kaa jebin kara wey soonku hadduu lafihiisii asaxo intaa waa raasamaalkii faradka aad gudan lahayd waaye sunanka in lagu daro karaahiyaadkana laga ilaaliyaay iyagana waa wax ajirka sii badin lahaa oo raasamaalkii ka badanoo ribix dheeraad ahaa raasamaalkunbay kelimadaydu labada arrimood ugu saabsanaan doontaa soonku si uu asaxo afar arrimood baa la doonayaa afarta arrimood mid haddii la waayo soon kaa asixi maayo waajibkuna kaa dhici maayo arrinka koobaad waa inaad muslim tahay marka aad soomayso iyo intaad sooman tahayba qof aan muslim ahayn ilaahay baa yidhi waman yabtagii hayra alislaami diinan falan yuqbala minh wahuwa fi alaakhirati min alkhaasiriin lagamaba aqbalaba soon aadan muslim ahayn ka aqasixi maayo waxaa laga yaaba inaad isweydiisaan war dad muslimaaba lala hadlayaaye muslim inaad tahay maxaa looga jeedaa waxaan uga jeedaa labada way dhacdaa meelaha gaalada lala nool yahay oo dadka qaar ay nagala socdaan qof gaala waa ma ay muslim saaxiibbo yihiin ama diinta islaamkaan akhriyey lahu waan tijaabinayaa leh ayaa sooma allaha ku soo hanuuniyo laakiin soonkaa ma asixin waxaase taa iga sii muhiimsan tan kale adoo muslima inaad gaalowdo ood wax gaalnimaa ku dhacdo soonku wuu kaa jabayaa kaama asaxayo waxaa ka mid a gaalnimadu qofku ku dhici karo ama tusaalayowgeeda anugu aan arkay dad baa meelaha qaarkood ka qoran sponsor hay-ada kiristan iyo kaniisado waxay isqoreen iyagoo muslim sheeganaya inay kiristan yihiin axaddana kaniisadda waa inay tagaan baybalka cashirkiisa la aqrinayana ama iyagu jeediyaan ama dhegaystayaasha baybalka haysta ee la soconaya heestana la qaadaya la jiibinaya ay ka mid noqdaan way soo martay in salaad duhur lay weydiiyey saakana waan tukaday barqadiina baybal baan soo akhriyey duhurkana waan idinla tukadee diintaydii ka waran way soo martay qofka sidaasihi soon uma jiro wuxuu rabaa muslim inuu noqdo maalinta bartamaheedana mar soo gaaloobo waxaa kaloo dhacda inaad qof ku xanaaqdo ood caydo ilaahiisa diintaada malagaaga nabigaaga kuwa cayaa jira dee qofka ilaahay caya qofkana islayseene ilaahay waa ku abuuro waa kuu nicmeeye muxuu ku yeelay diin xumaan waay nabi maxamed muxuu ku yeelay sala allahu alayh ali wasalam diintu maxay ku yeeshay malaa'igii maxay ku yeeshay wixii in la rumeeyo oo la qadariye ay ahayd inaad caydo iyadana kufri waaye ilahay in la caya gaalnimo wey nabi maxamed in la caya gaalnimo wey in diinta la caya gaalnimo wey in malaa'igta la cayana gaalnimo wey adoo sooman waan xanaaqay intaad tiraahdo haddaaba diintii iyo ilaahay iyo nabi iyo caydo dee soonku kuuma jirayo taasina waa qodobka labaad si soonku kaaga asaxa inaad ilaaliso ay tahay qodobka saddexaad ee ay tahay inaad ilaaliso soonku si uu kaaga asaxo qodobka labaad baan leeyahay ka waa islaam inaad tahay ka labaadi waa inuu qofku caqli leeyahay qofku hadduu la yidhahda ha soomo isagoon garabashaba lahayn ama waa ilmo caruura oon kala garasho gaadhin ama waa yeel cimriyey oo caqligii ka tegay wey ama intaa wax u dhexeeyo qof waashay wey ama jin ha waalo ama si kale ha u waashee qofku mar hadduu waalan yahay caqliguna ka tago soon kumana waajibo kamana asaxo waayo soonku niyuu u baahan yahay sidaan soo socoteen sheegi doono qof aan caqli lahaynna oon garashiba lahaynna
ma niyoon karo. shardiga qodobka saddexaad waa inaad niyooto intaan waagu baryin habeennimo waa inaad berri soomayso inaad niyooto. maxaa looga jeedaa inaad niyooto? inaad go'aansato ood ku tala gashan tahay inaad soonto maalinta soo socota, ama habeenkii ku seexo adoo berri inaad soonto raba, ama xilligaad soo suxuuranaysaba uwa soo kac inaad suxuurato oo maxaad u suxuuran inaad soontaad rabtaa. niyadu waa taas. haddii la yidhaahdo see loo niyoodaa, waxaad tiraahdaa maxaad u suxuuranaysaa? inaan soomaan rabaa. wataa niyadii. intaa ogahay sal iyo daliil badan oo la cuskada ma laha niyo lagu dhawaaqo ama la isu meeriyo ama la akhriyo. go-aanku niyada qalbiga weeye itifaaqan. amaa maxaluha fa qalbu naawi, qofka niyoonaya qalbigiisa weeye maxalkeedu iyo booskeedu. khilaafna kama jira intaan ogahay niyada halkay ka timaadaay inuu qalbigaaga iyo go-aanka adiga kaa soo fulayahay. maxaa la diidan yahay? adoo go-aansaday inaadan soominba hadduu waagu kuu baryo oo dib ka doonaysa inaad ka soonto waxba kama jiro. adigoo labaclabaalaynaya ma soontaa ma iska daysaa, ma soontaa ma iska daysaa adoo leh haddii waagu kuu baryana soonkaagaasi waxba kama jiro haddaa xataa dib ka go-aansato. niyadii baadan haynin. nabigaan yidhi sl qofkii waagu u baryo qofkaan habeennimadii niyada sii go-aansanin waxba soonan uma jiraan. nabigaa yidhi sala allahu alayh ali wasalam. qodobka afraad waa inaad waxyaabaha soomka jabiya ka badbaada waay, ama kuwa adigu ficilkaad ula imanayso ama kuwa xagga minallaahida qadar ahaan uga dhacayo dhiiggii caadada iyo kawmushaa saan dib ka tilmaami doono. haddii haddaba aad muslimta caqligaaguna joogo habeenkiina niyootay wax soonka jabiyana aad ka badbaadaayey insha allah soonkaaga waa asaxayaa. hadba intaad khayr badiso buu kala ajir badnaanayaa. qodobka xiga ee waxyaabaha soonka jabiya ah waxaanu leenahay 6 baan ku soo ururin karnaa soonka waxa jabiya ee aan gaalnimo iyo caqli tagay ahayn. 6daasi midda koobaad waa cunto iyo cabitaan, salaada subax iyo salaada maqrib inta u dhaxaysa cababto. markay salaad subax soo gashay intaynan salaad maqrib soo gelin muddada la yidhi uma atimu siyaama ila leyl. muddadaad wax cunto ama aad cabto de soonkuba wuxuu ahaa cunada iyo cabitaanka iyo in la daaye ahayd. marka way kaa jabaysaa. qur-aankuna waa sheegay, culamada muslimiintuna waa isku raacsan yihiin. qodobka labaad wixii cunto ka dhigan wey, waxaan cunno toos ahayn laakiin booskii cunnada ee baahidii iyo oonka bi'inaysay wixii gala. waa faleebooyinka qofka xididada dhiig mareenkaa lagaga rakibo ee cunnada iyo cabitaanka iyo tamarta iyo awoodda ama enerjiga loo raaciyo wey. faleebooyinka sidaas ah ee qofku uu qaataay soonka way jebinayaan. maxaa yeelay sharcigu erayo iyo alfaad ma eegee macnaha iyo nuxurku axkaamta siiyaa. macnaha iyo nuxurka ay xambaarsan yihiinna waa cunno iyo cabitaan waay. gaajadiina way bi'inayaan, oonkiina waa bi'inayaan, awooddii iyo tabartii lagu yeelan lahaana qofka way u yeelayaan. qofku maalmo iyo asaabiic iyo bilo iyo sanadbuba kaga maarmi karaa jirkiisu cunnada qadar ay la ekaataba. soomaalia dad xanuunsanoo muddo dheer falaboon ku rakiban tahay oo cunnada iyo nafaqada laga siiyo oo naf waxba ka qaadanayso ma arag. taa waxaad ka garatay waa qof cunayo cabaya wey. laakiin cunnada iyo cabitaankii afka laga qaadan jiree la yaqiinay baynan ahayne iyadii oo dadban weeye. marka cunnada iyo cabitaanka horena waa midda tooska, ta labaadna midda dadban weeye. qiyaasan bay isku xukumuta. qodobka saddexaad ama waxa saddexaad ee jabiya waa gogoshiya galmada rag iyo dumarka dhex mara. alfuruuju almuxaramatu weeye. ama ramadaan dartii baa loo xarimay ama asalahaan bayba xaraam u ahayd. haddaba xiriirkaa gogoleed hadduu xaaraan iyo zina yahay iyo hadduu xalaal iyo reer yahay asalkiisii ahaa soonka jebintiisu waa isaga mid. labadaba soonka way jebiyaan. hadhow bay kala dembi bataan. weliba jebin keliya ma ahane qadihii iyo kafaara ku waajibaysa. amaa soonka inuu jebinayo waa nas iyo ijmaac. kafaara in laga doonayana naska nabigaa sheegay calaih slat salaam. qaduhuna
riwaayada Abu Daawud iyo keyrkii warinayeen baa ahayd waqdi yawman makaana. arinta afraad waa wixii macnaha jimaaca ka dhigan way qiyaasan isagana. jimaacu wuxuu ka dhigan yahay gogoshiya galmadu waxay ka dhigan tahay qof dareenkiisii shahwadeed kacay kadibna xiriirka gogoleed ku damiyay. haddaba haddii qofkii dareenkiisa shahwada kaco oo si aan xiriir gogoleed ahayn uu ku damiyay ama gacan la isticmaalay tiisiya mid kale ha noqoto ama siyaabo kale ha noqote oo la iska keenay waxa hadda asaxul qowleyn ilaah inay jabinayso soonka sababtoo macnihii shahwa gudashada ay xambaarsan tahay. sidaynu u niri cunitaankii macnaha cuntada xambaarsanaya faleebooyinka ahaa qiyaas ahaan buu macnihii ka dhigan yahay oo u jabinayaa tanna macnihii shahwa gudashadu ka dhigan yahay. xadiidkiina waa soo gelaya xadiisul qudsiga ahaa yadacu طacaamahu wa sharaabahu wa shahwatahu min ajli labadan tooska iyo kuwan dadbanba waa soo gelayaan. arinta shanaad waa qofku kas inuu isaga matajiyo wey inuu qofku kas isaga matajiyo oo iska keenkeena ama gacan ha geliyo ama calool ha riixriixo ama ha dacdacsada si uu u mantago qofka mataga iska keenay soonku waa ka jabaya laakiin kuma jiro qofkii uu soo dhaafay soon ku talagelin. nabigeena ka suganta iyadana sallallahu alayhi wa sallam. arinta lixaad ee ugu dambaysa intii hore shanta hore way ka duwanta. shanta hore waa fal uu qofku la imanayay oo isaga ka dhacay way. arinta lixaad waa wax awoodiisa ka baxsan gabadha hadduu dhiigii caadada ku dhaco ama dhiigii umusha ku dhaco. dhiigii caadada hadduu ku dhaco gabadha iyadoo sooman waqtigay dooniba maalinta ka maraysee soonku waa jabaya. soonkuna waa sidii salaada oo kale oo salaadaadan weli ka bixin haddii weysadu kaa jabto dee salaadaada waa ku noqon camalkaad samaysay intaad weyse qabtay insha Allah ajir la'aan noqon maayo laakiin salaadii kaa gudi mayso. soonkuna waa sidoo kale hadduu waqtiyada ugu dambeeya maalinta gabadha dhiiga ku dhaco soonku waa ka jabaya. ajir la'aan weeya laguma dhihin camalka Ilaahay dartii u samaysay ajir way ka heli insha Allah taala laakiin soonkii faradka kama gudino waqtigii oo la gaarin ayuu soonkii jabay way. sida mubtilaadka kale oo kaleeto dhiiga umushiya dhiiga caadada haday ku dhacaan gabadha soonku waa ka jabaya. shanta hore ee cunadiya waxa la midka xiriirka gogoshiya waxa la midka iyo mataga la iska keeno soonka waxay jabiyaan markii saddex arrimood la helo. ereygaasana ku soo gunaanadayna insha Allah taala. marka koobaad waa inuu qofku xasuusan yahay oo uusan halmaansanayn. halmaan hadal kuma jiro si cumuuma guud buu nabigu u yiri sallallahu alayhi wasallam inna allaha tajaawaza li ummati an al-khata'i wan-nisyani wama istukrihu alayhi. halmaanku ma diiray oo cafiiba xadiidka kamida. waxa kale oo ka sugan si gaara man nasiya wa huwa saa'imun faakala aw shariba falyutimma sawma fa inna ma at'amahu Allah wa saqah. qofkii halmaamay soo sooman ee cune ee cabba ha iska dhamaystirto ilaahay baa cunay cabitaan ugu deeqay. halmaanku haddaba halmaan hadduu qofkii u sameeyay isagoo halmaansan inay soon tahay inuu soomanaabuu halmaamay waxyaabihii mid kamid uu sameeyey soonku kama jabayo. laakiin intabi huna mas'ala dad qofkii soomanaayo wax cunayo cabaya aragta maxaad samayn ma la hadlaa isir halmaansan yahay laga yaabay waan iska daayaa maya waad la hadli way adiga inta ku muuqataay cunaya uu cabaya oo qof soomanoo dambi sameynaya inuu halmaansan yahay wax ka qarsoon adna inta muuqataa lagu faray. hadduu halmaansanaana intii hore Allah u calfo hadduuna halmaansanayna adu waajibkaaga amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar gudati waxa kale ka hor istaagin. shardiga koobaad waa inuu halmaansanayno xasuusan yahay soonka. shardiga labaad waa inuu khiyaarkii ku sameeyo lagu qasbin. haddii la qasbo qofkii soonkiisu wuu jabaya ma jabayo soonkiisu ma jabayaan leh oo mastukrihu alayhi way. shardiga saddexaad qofku waa inuu tahriimka og yahay waqtiga inuu soo galay waa inuu og yahay waxaan inuu soonka xaraan yahay inuu cuntada xaraan ka tahay waa inuu og yahay. qofkii hadduu iska cuno iska cabayso oo ogeyn xaraan inay ka tahay hadduu cuno iska cabo isagoo ogeyn ba maalinteena soo gasho habeen moodaya soonkiisu wuu jiraa.
nabiga markii ilaahay ku soo dejiyey subxaana wa tacaala wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayط alabyadu min alkhayط alaswadi intaas aayadda markii hore soo degtay intan dambe min alfajri gadaal bay ka timi iman doontaa labada xarig ee madowga iyo cadaanka marka ilaa idiin kala cadaadaan habeenkii iska cuno iska cabaa la yidhi waxaa loo jeeday madowga habeenkii iyo cadaanka maalintii min alfajri baa dib ka cadayn doonta laakiin marka hore min alfajri lama socoto tafsiir nabigu uu faahfaahiyeyna ma jirin sala allahu alayh ali wasalam saxaabada qaar ka mid a sida imaam muslim saxiixiisa ku warinayo cadi ibni xaatim itaayi oo kaleeto laba xarigoo madow iyo cadaan uu barkinta hoos gashaday sahl ibni sacdinna wuxuu warinayaa saxaabada qaar inay lugta ku xirteen ama lugta ku xidheen laba xarigoo mid madow iyo mid cad way iska cunayeen guryahooday ku jiraan ilay madow iyo cadiinkay kala gartaan bay iska cunayeen xilliga iftiinku guriga intuu qabto oo uu soo galo labada xarigaad kala garataay waa xilli maalin cad ah markay nabigu u sheegeen calayhi salaatu wasalaam wuxuu u sheegay fahamka iyo tafsiirka inuu khaldan yahay kadibna waxaana soo degtay min alfajri laakiin soonkii hore ku noqdo qadaya lama dhihin halka waxaad ka garatay qofkan habeenkii inuu baxay oon maalin soo gashay ogeyn iyo qofkan taxriimka ogeyn inuu macduur noqonayo soonka ka jabaynin intaa waxaan isleeyahay axkaamta ugu muhiimsan bishii ramadaan iyo soonkii saas darteed waxaan ku soo gunaanadayaa hadalkayga in guubaabada guudna aynu qaadanno soonkii iyo salaadiiba aynu ku dadaalno kana faa'iidaysanna bisha ramadaan si aan arrintaa u gaadhnana si soonkeennu ku asixi lahaa waxa jebiyana looga ilaalin lahaa aynu ku dadaalno oo waxyaabaha aan aynu iska ilaalinna jebinaya siduu ku asixi lahaana aynu la nimaadno ilahi waxaan ka baryaa subxaana wa tacaala xaq iyo khayrka inuu nagu kulmiyo soonka iyo salaadana naga aqbalo intaynu cashirka xiga isaga iman doonno waa aniga iyo bahdii Somali Channel guud ahaan iyo gaar ahaan xafiiska Nairobi idinkaga tagayna Allah nabad yeelo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.